shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ayaa xafiis cusub ka furatay xaafadda Sinay ee magaalada Hargeysa. Munaasabadani xadhigga lagaga jarayay xafiiskani cusub oo bixin doona guud ahaan adeegyada ay bixiso. Shirkadda isgaarsiinta casriga ee Somtel ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta shirkadda Somtel, cuqaal, odayaal waxgarad iyo waliba dadweyne kala duwan. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay adeegyada uu bixin doono xafiiskani madaxa suuqgeynta Somtel Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi iyo madaxa iibka ee shirkadda Somtel Maxamed Isaaq. waxaynu halkan ku furi doonaa xarunta cusub ee xaafadda Sinay xaruntan oo shirkadda Somtel iyo guud ahaan Dahabshiil Group ahaan aan ugu talagalay in adeegyada kala duwan ee shirkaddu ay bixiso halkan laga helo. xaruntan waa xarun si weyn oo ballaaran loo qalabeeyay isla markaana loogu talagalay inay bixiso dhammaan adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel. waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa bulshada iyo macaamiisha kala duwan ee xaafadda ku nool oo runtii hore laga yaabo inay meelo kala duwan amba meelo kale oo laga yaabo inay ka durugsan yihiin ay adeegga shirkadda u doonan jireen, balse aan ugu bushaaraynayno maanta laga bilaabo inay adeegyadii kala duwanaa ee shirkadda Somtel ay ka heli doonaan xaruntan. xaruntan waxay furnaan doontaa laga bilaabo 7 aroornimo ilaa iyo 10 habeenimo. saacadahaas oo dhan waxaan ugu talagalnay inay u shaqeyso ay u adeegto bulshada kala duwan ee xaafadda ku nool. hadday noqoto ganacsatada oo kala bixi doona lacagahooda iyo dahabka isla markaana ka heli doona sarifka cash iyo dollarba wixii ay u baahdaan. hadday noqoto dhalinyarada, culimaadoyinka, haweenka, ardayda, dhammaanba bulshada kala duwan ee xaafaddu waxa ay si fudud uga faa'iideysan doonaan adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel ay ugu talagashay oo ay ka heli doonaan xaruntan. waxaana mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaynaa bulshada iyo macaamiisha kala duwan ee ku nool xaafadda Sinay. xaruntan cusub waxay bixin doontaa adeegyada Somtel dhammaantood iyo dahab. waxay bixin doontaa ku hadalkii, sim cardadii, internetkii, routerskii iyo deviceskii kale ee looga bartay shirkadda Somtel, kuwaasoo dhammaantood bulshadu ay uga baratay qiimo macquul ah iyo tayo aad u sarreysa. geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha xaafadda Sinay, kuwaasi oo shirkadda Somtel ku amaanay isla markaasina uga mahad celiyay adeegyadani ay u soo dhaweysay. waxaanu soo dhaweynaynaa shirkad kasta oo maal gashanaysa xaafaddayada. Somtel Dahabshiil Group oonu xafiiskeedii furayno aad iyo aad baanu idiin soo dhaweyn doonaa. adeegyada aasidaana waanu ka faa'iidaysan doonaa si fiican. shirkadda Dahabshiil Group xaafad ahaan iyo ka culum ahaanba waa shirkadda taabagelisay baynu odhan karnaa runtii inay kor u qaaddo xataa qur-aanka kariimka muddo dhowr iyo 20 sana tartanka qur-aanka kariimka. waa shirkad ammaano leh, aad baanu u soo dhawaynaynaa. waxaanu leenahay xaafad ahaan waanu idin berber taagannahay adeegga wanaagsan ee keenteen iyo dahabka. waxyaabo badan oo isticmaalaa jira iminka kaas adeegyada kaasaa ka mida qaar kale oo anjabada ku ay ahaa labadiiba waan haynaa. waxaan doonaynaa in adeegga noo soo kordhisaan. ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdilaahi Cali Askar, madaxa howlgelinta shirkadda Somtel. xaafaddan inta ka soo qayb gashay waa u mahad celinaynaa. waxaan idiin sheegayaa dhammaan adeegyadii ay bixin jirtay Somtel oo dhan waa laga helayaa. waxa laga helayaa adeegyada kale ee xawaaladda, waxa laga helayaa adeegyada kale ee dahab, dhigashada iyo qaadistaba, dhigashada iyo qaadashadaba, Somaliland shilinka iyo dollarkaba. marka waxaan aad iyo aad idinku rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan hawsha la idin furay. Amiin Maxamed Ahmed, TV-ga caalamiga Universal, Hargeysa.